الإخوة الكرام نتوقف على الغاية الكبرى لصوم رمضان، وهي كما الواضح في كتابه الكريم كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني المقصود الأعظم لصيام شهر رمضان هو تحقيق العبد للتقوى. waxaynu u jeednaa waynu ka warramaynaa yoolka ugu weyn ee loogu talagalay in loo soomo. yoolal badan baa loo soomaa ama ujeedooyin badan oo ay ka mid yihiin in la xaqiijiyo ilaahay adeecidiisa, in nafta lagu tababaro doonista oo laga hayo waxyaalaha dembiyada iyo xumaha ah. laakiin yoolka ugu weyn waxa weeyaan in la gaadho siduu ilaahay qur-aanka ku sheegay aayadaynu soo akhrinay: lacallakum tattaquun, oo ah si ay isku ilaalisaan. التقوى أما إسرائيلنتو waxay ka dhigan tahay sida Umar ibn Khattab uu weydiiyay asxaabigii cilmiga badnaa ee la oran jiray Ubay ibn Ka'b. wuxuu ku yiri Ubay waxaad ii sharaxdaa ii qeexdaa iga warantaa waxa ay tahay التقوى oo ah islaalinta. Ubay wuxuu ku yiri Umarow ma soo martay wado ama jid ay daadsan yihiin quraarado iyo qodxo, maxaad sameyn lahayd? wuxuu ku yiri haddaan wadadaas oo kale soo maro waan laaban lahaa oo maryahan kor u qaadan lahaa, lugahana intaan kor u qaado iyaan cagba mar meel dhigi lahaa. Ubay wuxuu ku yiri sidaas ah التقوى. markaan isku soo xorino yoolka ugu weyn ee qofka muslimka u soomaya waxa weeye inuu helo xaqiijiyo yoolka la yiraahdo is ilaalinta, si noloshiisa kale uu isaga ilaaliyo dembiyada isuna xakameeyo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwa ku guuleystay helidda لعلكم تتقون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.